عليكم كسو دو داوضي برنامجكينا مانتا waxaan uga hadli doonaa boqortooyo soo martay geyga Soomaaliya oo loo yaqaan Ajuuraan. boqortooyada Ajuuraan waxaa la aasaasay qarnigii 10aad ee miilaadiga waxaana aasaasay boqor Maxamed Aalan Balcad. sababihii uu aasaasay boqortooyada ayaa waxay ahayd intuusan aasaasin boqortooyada qarnigii 10aad ee miilaadiga ayaa waxaa jiray maamul ay laayeen aabayaashiisa oo aan saad u sii xoog badnayn. waxaana ku soo duulay cadowgaasina waxaa la dagaalamay boqor Maxamed Aalan Balcad. waxaana dhaxmaray dagaal aad u qaraar. ugu dambeyntii waxaa ku guuleystay boqor Maxamed Aalan Balcad. intaas kadib wuxuu go'aansaday inuu aasaasay boqortooyo la magac baxday Ajuuraan. kelimada Ajuuraan waa kelimo Carabi ah oo micnaheedu tahay dadka ku shaqeeyaan lacagta. dhulkana wuxuu ku magacaabay awowgiisa oo la oran jiray Soomaal. wuxuuna magaalada Xamar ka dhisay guri loogu aramiyay boqortooyada. sidoo kale magaalada Xamar wuxuu ku soo wareejiyay darbi leh 2 albaab, mid laga galo iyo mid laga soo baxo, wuxuuna ku qoray magaciisa. haddii aan dib u jaleecno boqortooyada Ajuuraan waxyaabihii ay dhiseen waxaa ka mid ah inay marka koowaad dhiseen maxkamado leh qaadiyaal, boolis joogaan wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka iyo sirdoon. waxay kaloo dhiseen military leh hogaamiyayaal iyo ciidan badeed aad u xoog badan oo ilaalinaya badweynta Hindiya iyo badda Cadan. dhulmareenkii Ibn Battuta oo ka waramaya heerka maamulka ciidamada badda boqortooyada Ajuuraan ayuu wuxuu ku qoray buugiisa sidan: maraakiibta kolkay imaadaan dekedda Muqdisho waxa uu imaanaya naaquudayaasha iyo maraakiibta wada askarta weydiinayna halka laga leeyahay markabka, meesha uu socdo, meesha uu ka yimid iyo waxa uu sido. sidoo kale boqortooyada Ajuuraan waxay dhistay xafiisyo ku yaala meel walba oo canshuurta laga aruuriyo. waxaana canshuurta laga aruurin jiray xoololeyda, maraakiibta ku soo xeerta dekedda, maraakiibta mara badweynta Hindiya iyo badda Cadan, kuwa ka jilaabta badweynta Hindiya iyo badda Cadan. boqor Maxamed Aalan Balcad wuxuu dhalay 7 wiil oo kala ah Walmage, Baydaan, Badbaydaan, Saanle, Saalamaga iyo Toor. waxaa kaloo la dhashay 4 wiil oo kala ah Hintire, Waranle, Garuure, Urure. markuu dhintay boqor Maxamed Aalan Balcad waxaa xilka kala wareegay wiilkiisii Walmage. waxay kaloo dhiseen boqortooyada Ajuuraan ceelal dhaadheer oo aad u fara badan. ceelashaasina waxaa ka mid ah Waradheere, Walwaal, Danoon, Faafan, Xaradheere, Ceeldheere iyo Ximin Green. waxay kaloo boqortooyada Ajuuraan ka qodeen ceelal dhulalka oomanaha ah sida Shabeellooyinka iyo Jubbooyinka. boqortooyada Ajuuraan waxay dhiseen taalooyin ku yaala magaalo kasta oo ay ka arimiyaan, qaarkoodna ay muuqdaan raadadka ilaa iyo hadda. taasina waxay muujinaysaa hanaan wanaagga boqortooyada. boqortooyada Ajuuraan waxay dhiseen masaajidyo fara badan iyagoo ka dhigay magaalada Xamar meesha ugu masaajidada badan caalamka. masaajidyadaas waxaa ka mid ah masaajidka Arbac Rukun, masaajidka Jaamaca oo ku yaala Xamar Weyne, masaajidka Faqrudiin iyo masaajidka Axnaafta oo ay dumiyeen gumeystihii Talyaaniga iyagoo ka dul dhisay baar ay u baxshay Safooy. waxay kaloo boqortooyada Ajuuraan lahaayeen caasimado ku kala yaala magaalada Muqdisho, Marka, Baraawe, Baardheere, Afgooye, Saylac, Harar, Qalaafe, Bu'aale, Bandar Qaasim iyo Hobyo. ugu dambeyntii boqortooyada Ajuuraan waxay burburtay qarnigii 12aad ee miilaadiga. waxaana filayaa inay wax badan ka ogaatay taariikh ka mid ah taariikhdii ay soo martay dalkeena Soomaaliya iyo boqortooyo ka mid ah boqortooyadii soo martay geyga Soomaaliya. wassalaamu calaykum.